بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاسترا فيتوريا سيمبر قايا شمال باتشوكتين شيلك سدحات. وأنا وين الله هذا شعب كمقدشو يوحى ميديا ذا بنتي اللي سلوا رجعي الأورانية مدحوينية سوكر على حجلاي موشنكي برلمان كوالة تشوشي موشنك برلمان كلمة تشوشين موشن ما هني وانقلاب برلمان كوكو فرماجو ودن جاره كله وشخصي أهان كله يهي marka madaxweynaha saad u ogtihiin anigu waxaan ugu magac daray maxamed cabdullaahi pinocchio waa beenlow ninka beenlowga waa qaa'im ninka beenlowga ballanta uu ka baxaa dhib badan buu shacabka u geystay waa khiyaanalow maalintii sabtiga ahayd 1 madaxweynaha iyo gruubkiisa kheyre waxay ogaadeen in laga badan yahay fashilmayaan oo jawaari inuu guuleysanayo يا مدحوينها وحو سميه وهكي technical policy وحاويان technical استعمالي وحو هكي موشنكي وحو ياري قدامك وحقين كوات كاللبات iyo جواري ويكا oggolaadeen جواري waa nin wanaagsan goorol bu wanaagu ka taliya laakiin madaxweynaha si qaa'inimo ayuu u hakiyay oo waxay ahayd madaxweynaha inuu meel raaco waxay ahayd inuu mooshinka laado ama inuu mooshinka oggolaado oo si daacad ah vote loogu qaado labadaa ma uusan sameyn dee waa nin khiyaanoole ah khiyaanada ay wataan waxa weeye waxay doonayaan inay dad aruursadaan mooshinkii waa la hakiyey haddana wuu soo cusboonaaday waa ka hadda uu muday waraaq soo qoran soo sheergeliyay waa kasoo hadlaya oo dhaha uu inqilaab ku qaatay baarlamaankii iyo guddoonka baarlamaanka marka waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed been baa laisu sheegayaa haddii aad farmaajo kheyr ka sugaysiin ama kheyre kheyr ka sugaysiin waddanka waa waddan bililiqo waa waddanay u dhammaatay waa waddan aan marnaba laga yaabin inuu soo hagaago marne lagama yaabo aqalka sare waan garanaynaa waa mujrimiin xildhibaanada badankooda waa mooryaan xildhibaanada iyo golaha wasiirada waa mooryaan iyo diaspora waa dad waddankii usoo shaqo tagay inqilaabkaabaa socdo inqilaabkaa la doonayaa in lagu fuliyo baarlamaanka waxaa la doonayaa ay ka go-on tahay madaxweynaha iyo kheyre inay ka tuuraan jawaari ay dantooda gaaraha wataan uusan si ay doorasho 1 man vote 2020 u dhicin marka waxaa weeye arrin xajmigeeda leh waa inqilaab cad la doonayo in lagu inqilaabo baarlamaankii golaha shacabka inkastoo iyagaba ay yihiin wax tuuganimo ku yimid oo baarlamaan dadban uu yahay iyagana ay keeneen madashuna ay keentay madaxweyne dabran marka waxa weeyaan dadkii ku xantaaqayay oranayay madaxweynaha wuu mashquulsanaa oo ciidamadu ku mashquulsanaa arrinkan 20 cisho kadib wuu joojiyay dhibaatadii waa been madaxweynaha ma mashquulsaneen ciidamo kuma mashquulsaneen halkaa wuu isku soo diyaarinayaa ciidamada wuxuu u diyaarsanayaa dagaal iyo dictator inuu ku qabto ninkaa wuxuu doonayaa inuu ka argoodsado shacabka muqdisho say u dhan yihiin marka waxaan u sheegayaa shacabka leh madaxweynaha mooshinka joojiyey madaxweynaha mooshinka ma joojin madaxweynaha dan gaara uu leeyahay mooshinka u hakiyey wuu ku fashilmi lahaa waxaa la doonayaa cabdulaahi cusuble iyo raggan dhaqaalaha leh iyo rag kaloo waaweyn in lasoo jiitaa la doonayaa weli muqdisho waa lagu shirayaa labada dhinac marka waxaa lagu socdaa waxaa weeye inqilaabka baarlamaanka madaxweyne farmaajo wuxuu doonayaa inuu inqilaab ku rido jawaari wuxuu doonayaa inuu u dhiibto ninuu asaga sito say doorasho ay u dhicin 2020 1 man vote marka waxaa la doonayaa maxay la aaminsan yihiin aan la yaabanahay ay u aaminsan yihiin xisbiyada mucaaradka waa inay shaaraca usoo degaan shacabka soomaaliyeed waa shacab maanta majuura ee mooshin walba iyo wax walba garanayo shacabku gacmaha inuu ka xirto maaha arrinkaa baarlamaanka iyo inqilaabka uu farmaajo wado waa in farmaajo iyo kheyre layska qabtaa baarlamaanka la badbaadiyaa haddii la doonayo qarannimo haddii kalena weligiina sidaasad ku jiraysa هذا ترى فيكتوريا سيمبر مع السلامة.